indhahayga mar walba aad ay u ilmeynayaan laakiin mar walba dhakhtarka u tago wuxuu leeyahay indhahaaga way qaalan yihiin waa maxay maxaa keenay in indhahayga qaleel noqdaan su'aalaha inta badan bukaanada ay weydiiyaan oo u baahan in laga jawaabo assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada muuqaal cusub mar kale waa anigoo aad sharxiyaa ugu barteen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga haddii aad marka ugu horeyso muuqaalin daawatid subscribe saar sidoo kale like noo saar si aad u hesho mar walbo macluumaad ku saabsan caafimaadka indhaha oo joogto ah maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay indha qaleel dabcan xaaladan mar walba dhagiin way ka badatay waxa inta badan ee dadka isweydiinaya waxay tahay maxaa keenayo oo indha qaleelka maxaa lagu daaweeyaa sababta dadka xaaladan qabo intooda badan ma fahansano waxa keenayo daawadeedna way ku daaleen sababaas ayaa keenaya qofka inuu isweydiiyo oo mar walba dhakhtar indhaha u tago mar walba clinic u tago haddana laga yaabo in goojo loo soo qoro goojadii uu ku dhibcinaa haddana waa jugjug meeshaa la joog marka muuqaalkan waxaa rabnaa xoog ku saarno talo horta muxuu yahay indha qaleelka la sheegayo sidoo kale maxaa sababay waa arrinta labaad aan muuqaalkan xoog ku saareyno inta saddexaad oo ka hadlayna waxay tahay maxaa lagu sameyn karaa oo lagu daaweyn marka lagu leeyahay indhaha way qaalan yihiin linteena waa biyo sida banaanka arki kartid laakiin qeybo ayuu ka samaysan yahay qeybahaas oo ah qeyb yar oo biyo ah biyahaas oo biyo cusbo leh oo minerals ku jiro sidoo kale qeybta kale oo xafido biyahaas mise ilinta xafidayso ayaa ah qeyb saliida qeyb kale oo isku xiraysa labadaas marka guud ahaan waa labadaas nooc oo u qeybsama indha qaleelka oo ah midna qeybta biyaha cusbada lahayd in aynan jirkaaga soo deynaynin oo qanjiraha ilinta qaabilsan soo deynaynin midna way soo deynayaan oo laga yaabo indhahaaga ilin badan ay leeyihiin biyo badan ay leeyihiin laakiin saliidda xafidaysay in ay biyahaas aynan bixin oo isha dhaqsi aynan ka bixin in ay ku yar tahay marka labada nooc oo indha qaleelka ugu waaweyn ayaa noqonayo mid ilinta qeybta biyaha cusbada leh ee ku yaraanayso iyo mid ay u wanaagsan tahay ilinta qeybta biyaha cusbada leh laakiin saliidda xafidaysay ay ku yar tahay waa labada nooc ee ugu waaweyn ee indha qaleelka midda qeybta biyaha cusbada leh mucus loo yaqaan ee ku yaraanayso inta badan waxay ka mid tahay wax gudaha ka imaanayo si tusaale ahaan cudurrada rheumatismka oo kale Sjogren syndrome waa cudurro marka qofka gudaha ka imaanayo oo qanjirada marka ilinta soo deynayay ka hor istaagan ay soo daayaan sidoo kale waxaa suurtagal ah xaaladan keeni karto in tusaale ahaan daawooyin qofka isticmaalayo kale in ay xaaladan u keento laakiin midda qofka gudaha ay kaga imaaneen oo xataa ilin badan indhihiis ay soo deynayaan laakiin baxayso oo nooc ugu badan oo aan isleeyahay xataa ana ahaan markaan bukaanada aan ku arko nooca evaporate loo yaqaano ama nooca baxay loo yaqaano taas oo keeni karto tusaale ahaan in ilinta qeybta saliidda leh meesha ay kasoo baxaan ayaa ah qanjirada marka meibomian gland indhaha hoostooda ku yaalo in ay xirmato marka qofka ilin badan uu leeyahay laakiin dhaqsiya baxaysa oo saliiddii markaa xafidaysay ayaa meesha ka maqan marka qaar noocan oo baxa ama evaporate loo yaqaano ayadoo qanjiraha ilinta kaa xirneen oo saliidda ay ku fiican tahay amaba xitaa ilin badan indhahaaga soo deynaya indhahaaga fiican tahay ayaa markaa waxaa keeni karta cimilada qofka uu ku jiro ama tusaale ahaan meel huur leh ama ku jiro meel dabeesheeda ay aada u badan tahay oo kale meel ku jiro in ilintii indhaha ku ay dhaqsi baxayso way keeni kartaa xaaladan sidoo kale waxaa inta badan dhalinyarta weliba u keeni karto ilbiriqsiga oo qofka ku yar tusaale ahaan qofka markuu ilbiriqsanayo ahamiyad gooniya u leedahay ilintaas oo waxay keenaysaa ilintaas si isla mid ah indhaha ay ugu fido marka qofka haddii uu leeyahay noocan baxayso ilinta uu leeyahay laakiin dhaqsi baxayso waxaa looga baahan yahay marka in uu aada ugu dadaalo inuu ilbiriqsiga badiyo sidoo kale waxyaaba ku dadaali kara waxay tahay meel hadduu joogo kale guri huur leh oo kale ama huurkeeda badan yahay oo kale waxaa jiro machine humidifier lahdo oo hawadaas qaleelka ka ilaalinayo oo qabow kaga dhigayo kale habeenkii markuu seexanayo oo kale uu shidan karaa waxyaabaha kale oo keeni kara xaaladan waxaa ka mid ah qofka marka uu seexanayo oo kale indhaha inuu si fiican isugu qaban oo dadka qaar ina aragteen laga yaabaa indhahooda haaf ayaa ka banaan marka xaaladan way keeni kartaa in indha qaleelka u keento marka qofka haddii uu xaaladan oo kale leeyahay kale indhaha inuu eye mask oo kale indhaha uu ku xirto ama geedka humidifier la oo hawada qoyaan inuu guriga soo dhigto oo xilli habeenka uu jiifanayo uu shito arrinta labaad oo qofka ka saacidi karta waxaa ka mid ah
meel dabeel haddii uu joogo kale in ookiyaalaha geesaha ka xiran oo dabeesh nan walba ka xirayo inuu ka qaato markii uu banaanka u baxayo. haddii uu xafiiskiisa mise gurigiisoo kale uu marwaxad ku isticmaalayana inuu aada ugu taxadiro dhanka ay ka imaanayso inuu u fiirsado oo dhinaca uu isaga keenin. dhankaas uu gees isaga keenaya waxay keenaysaa laftirkeeda dhaqsi ay uun baxdo, marka hore ama gadaal inuu ku daalo inuu iskaga keeno. haddii xitaa mukiif tahay inuu kor hoosteeda u fadhiisan. arrinta ugu dambeysana waxay tahay nooca goojada isticmaalaya inay nooc quality-geeda ama tayadeeda aada u wanaagsan inay noqoto. marka indho qaleelka ma ahan wax hal mawduuc lagu soo koobi karo. waxaan isku dayayaa muuqaalo taxana inaan ka sameeyo, maadaama xaaladan mar walba ay ku socoto update, horumarin ay ku socoto, cilmi baaris ay ku socoto, daaweynteeda mar walbana nooceetay ku xiran tahay. marka su-aasha maanta waxay tahay ma noocii biyaha ilinta ee ku yarad oo jirka soo deynayaa, mise nooca uunbaxidda oo ilintaada ay uunbaxaysa dhaqsi ayaa leedahay. haddii xaaladan leedahay qaybta commentiga wila wadaag. halkaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabaynaya. ha ka hilmaan muuqaalkeena gambalaalka u sheetid, laagtana saartid si muuqaalada soo socda anaha aad mar walba ula socotid ee caafimaadka indhaha. dirjiya caafimaad iyo indho fayow.